saabsan nabadda waxaan moodayay shirkiina sloganadiisa inay ka mid ahayd nabaddu baasada waxaan tiriyay 84kii waxaan kaga hadlayay 84kii haddii dalkii Soomaaliyeed xasuusataan labadii qabiil ee ood wadaagayba dab baa dhex yaallay dagaal sokoyaal dhex dhigay ummadii baa isku rogmatay baasada waxaa ka dhex akhriyay meel la yidhaaho hayayaasha la yidhaaho oo barigaa ku taalla halka habar jecliya dhulbahanta iska soo galaan weeye ooda iska soo galaa iyaga oo birta kala aslay oo kala guuray oo markaa nabadooda la xidhayo ayaa ilaahay ugu soo beego kaga qayb gala iyagoo markaa la isugu yeedhay meesha hayayaal la yidhaaho oo qolana haya bari bay degatay qolana haya galbeed ay degan yihiin ayaan maasadaa kala dhex kacay maasadaasi munaasabadda aan ka akhriyay halkaa ha ahaato laakiinse waxay ahayd mimbarkaasaan fariin uga dirayay dadka Soomaaliyeed kale ee masiibadaas haysato waxa aad u nasiib darro ah gabaygaasu inuu wali nool yahay oo maanta dad Soomaaliyeed oo isculaya ay jiraan dad Soomaaliyeed oo isculaya inay jiraan ayaa nasiib darro ah xalay baynu ka dhageysanayeen bala xalay too ugu dambeysay xabar baynu dhageysanayeen labada qabiil ee isku dhamaaday baynu dhageysanayeen ee walaalaha ay isku dhamaaday in yar yani meelo yar oo kooban baa dadkii af Soomaaliya ku hadli jiray meelo yar oo kooban island siriyar baa nabada inta kale waa la isku cunayaa mar kale fariin uga dirayaa mimbarkan taaganahay mar kale ayaan inta wali is cunaysa mimbarkan uga dirayaa maasadii dib u akhriyay wuxuu yiri hal madow araariya maaso harawaati roob iyo mawjad murti iyo higaad labadoona waayahan hadeer ku salaysan ahna diirad keebka hagaysa biritana nool u halhaysa haya ala salaax markaleeto doodaan la heesto hagaadho ma ogtahay hatraawi makuwar ma ogtahay habaaska daluumay ma ogtahay horweynta la qaaday ma ogtahay in hawd laga guuray ma ogtahay gabdhaa wada heermay ma ogtahay rasaasta habowday ma ogtahay hoggaanka la eeday ma ogtahay hiraayda wiraayda hadhac iyo bardaan laga caagay harad iyo biyaha godobaysan naylaha haraaryadu laysay shimbiraha dhirtii harsan waayey hiihdiya hayayda baxaysa ma ogtahay lacaybka la huurshay ooryaha asayda hagoogtay hooyada baroorta laf mooday aanada ilmaha ku hadaaqay dhalashiya hablaha dhaxdi seegay ma ogtahay habaarka dhisaalan halasaha dagaalka sokeeye dhalintiya halyeeyada leeday gacalkiiyo hilbaa isxasuuqay wadhi hoheeyaca kuyeeho habisada dadkayga la saaray haanhaanta loo kala soocay mahuraanka la isku lisaayo hurdankiiyo gabaara gurdayska halaq baa ku raad gadanaya isagaa hubka isugu dhiiba hanadada sidaa ku shiraysta dabadeed hamuunta ku reeba isagaa habeen iyo maalin godobtiisa reer huwinaya had bashaar qabiilu tolaya xaajana raggii hoojin laanac odayaasha hood kuma qoysto wadhi hoheeyaca kuyeeho qoriyahow hubsiina la'aanta qoriyahow hawaawi dhacaaga qoriyahow hinaasa laboodku jugtu waa waxaa la hagaasay meeshiya hargaysiya juba qoriyahow halkaad cuskataaba waxaa korkayga ku taalla waa meel jidhkayga habaysa dhaawaca anaa u hafeefta giddi waa halboolay qooban wadhi hoheeyaca kuyeeho umalkiya naftayda hadraysa hamigiyo sidaan u tolbeelay hiqdu waan ooladii waayey
haybtaydii baa is cunaysa garabkaygii bay is wada heeray maradeydii bay ugu uraysaa kugu dhibay oo kaa dhibay waahu rati heeryadiisa cunaya hunga waa sidaan ahay maanta dhannaheedha iima fayooba anigaa colaadda ku hoobtay wiil iyo walaalba ka hoogay anigaa hugayguu diiday iminkana haddaan la heshiinin hibashada haddaan la dawaynin hebel yaa lahaa la ilaawin himilooy walay gabalkaa dhac talefana ka haaday mooyi calayaho waxaa tahay loo hadh anigana hadha u iya faallo halistaa inaan ka afeeftay oo weliba hiifiga gaadhay hagarlaawo ii geli buugga taariikhda aan wax hilmaamin asalaamu calaykum